Toddobaadkan magaalada Hamburg waxaa lagu qabtay kulan socday 2 maalmood kaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed lagu wacyigelinayay sida ay uga faa'iideysan karaan nolosha qurbaha. Waxaa kulanka soo agaasintay hay'adda Anti-Charity Foundation oo u dooda xuquuqda soo galootiga isdhexgalka bulshooyinka ku nool Jarmalka, iyadoo ay ka qayb galeen culumodiin iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool magaalada. Gudoomiyaha hay'adda Anti-Charity Foundation Axmed Nuur Ibraahim Soomaali oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada ku nool Jarmalka ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay wax u soo kordhin lahaayeen. Sharaf bay noo tahay haddaan nahay hay'adda Anti-Charity Foundation inaan maanta halkan Hamburg aan ku qabano xaflad ballaaran oo ay marti noogu ahaayeen culimadeena Soomaaliyeed ee kala ah Sheekh Abubakar Maxamed iyo Sheekh Cumar Maxamed iyo Sheekh Axmed Al-Qaasimi. Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar oo ah laba walaalo oo daaciyaal ama culimo ah oo inta badan ummadda Soomaaliyeed ka wacyigeliya baraha bulshada ayaa halkan nagu soo booqday. Waxayna nooga yimaadeen dalka Holland, runtii waxay noo qabteen muxaadaro aad u wanaagsan waana uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale Sheekh Axmed Al-Qaasimi oo isna ah sheekha Soomaalida ee dalkan Jarmalka, culimada ka mid ah dalkan Jarmalka, aad baan uga mahadcelinaa. Isna gobolka u degan nooga soo hayaamay halka yimid si uu uga qayb galo munaasabadan ama muxaadaradan lagu wacyigelinayo laguna dhiirigelinayo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee degan dalka Jarmalka iyo aan iraahdo gobolka Hamburg iyo nawaaxigiisa. Marka inta laga soo tago xafladda tan waxa ay daarneyd sideedaba wacyigelin iyo in bulshada la dhiirigeliyo. Waxaana inta badan aan culeyska aan ku saareynay oo xafladdu ay ka hadlaysay qodobka ah rabshadaha sida loo geysto haweenka sida gudniinka fircooniga oo kale. Dr. Axmed Al-Qaasimi, Sheekh Abubakar iyo Cumar ayaa dhalinyarada u jeediyay hadallo isugu jira waano iyo wacyiga qurbaha iyo sida looga faa'iideysan karo. Kulankeena maanta khayrka ka dhashay lama soo koobi karo, balse waxa ila sii muhiimsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baranaysa in la taageero, la dhiirigeliyo, abaalgudyo iyo shahaadooyin la siiyo. Waa arrin muhiima. Arrinta hadda ka dhawaadiyo waa arrin khatar ah, waa arrin dhaqankeena. waxaan jeclahay waxay tahay in kelmadooyin ka imaanaysa qalbigeyga oo waana ah inaan isla wadaagno. intaas kadib waxaan u baahanahay inaan wax yar maskaxdeena ka shaqaysiino oo ah su'aal gaaban oo arrintaa la socoto inaan idin weydiiyo. waxaa jirto duco aniga maanta ku duceystay, ragga Soomaaliyeed halkan fadhiya ku duceysteen, adigana ku duceysteen, gabdhaha halkan fadhiya oo dhan ku duceysteen. hal duca jirto maanta dhammaanteen na midaysay aan ku duceysana. maxay ahayd ducadaas? ihdina siraatal sax oo ku duceysana sax waa ducada markaan salaad dukanaynay aan ku duceysana sax inay duco tahay. maxaa cadeen u ah? maxaa cadeen duco tahay? آمين. دعاء ما كنت دعيسنا محل لها آمين. صوت آمين لو دهي محاواه إلهي أقبل. ولا ليال باهذا أقوين قفك أوقبا ولشيسا وحيتهي إنه إلهي سبحانه وتعالى دين تنحق وناقع وكهنونيو كتوسيو كسوه وسنكالي حنين. لابا ويك ما كان هذه الشيء كذب حالك يا ويك سدعتنا كل هذه يعني cuntada iyo madadamaay xalwa cunaya beenti soo cunada iyo madadamaay uu leeyahay xalwa cunaya ya xal ma seexan uu kuleeyahay 8 saac u jir yani hadal midka ugu macaan ugu wanaagsan oo qofkan ku soo jiidan karo isku daya Sooma gabadhana sidoo kale waxay isku dayaysaa hadalba yani midka ka sii macaan ay isku dayaysaa si qalbiga qofka u soo jiido. laakiin hooyo waxa laga yaabaa weligii in aysan ku dhahin waa ku jeclaa hooyo. hooyo waxaa tahay iftiinka noloshan. hooyo waxaa tahay nicmada ugu weyn Ilaahay is. Dhalinyarada ka qayb gashay kulanka ayaa dareenkooda la wadaagay bulshada Soomaaliyeed sida ay u arkaan ahmiyadda kulanka uu lahaa. magacayga waa Dr. Xasan injineerku macdeer aad uga faraxsanahay maanta in oo munaasabadan ka soo qayb galeen lagu soo dhaweeyay shuyuuqda ama culimada waaweyn oo walaalaha hadana ah Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar iyo Sheekh Axmed Qaasimi oo sina Jarmalka degan magaalada kaas naga soo boqday. xaflad waxa ka dhacday maanta munaasabad aad u weyn oo bulshada magaalada Hamburg ay ka soo wada galeen. aad uga faraxsanahay anigana waxa ka imaaday magaalada Bremen nawaaxigeeda
waxay ahayd maalin aad u wanaagsan oo buwaag iyo cilmi iyo muxaadaro iyo wax walba la isdhaafsaday. Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Aadan oo ku nool magaalada Hamburg. Maanta xafladdan waxaa ka faa'iido wax badan oo inta lagu soo koobi karin oo ka mid tahay hooyada in baari loo noqdo, in hooyada la dhegeysto, in hooyada wax walba loo qabto, iyo in adiga nafsadaan wax u qabato waddanka wax ka qabsato. magacaygu waa Naciime Shariif Xasan waxaan deganahay magaalada Hamburg. waxaa lagu soo bandhigay buug muxaadaradan maanta waxaan ka faa'iiday waxyaabo aad u qaali ah sida maamuusta ay nagu leedahay hooyo macaan iyo ixtiraamka nagu leedahay iyo jeclaanshaha hooyo macaan oo kale. waxaa lagu soo bandhigay buug aad iyo aad u qaali ah. inta aan kasoo qayb galay bandhigyo buugeed buugga ugu qaalisanaa uguna qurux badnaa uguna sharafta badnaa uguna maamuusta badnaa buuggaas oo la magac baxay hooyo macaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Aadan. maanta waxaan imaaday xalfadan maasha Allah xalfad zaid u qiimo badan ahayd wax badan waa ka qaatay oo maanta ku dhaqmaayo waxyaalo badan waxyaalo naga qiireysiyo naga oysiyo ee ka hadleen Allahumma baarik ilaaha barakeeyo bareegtoodan ilaaha u barakeeyo nimankan. waxaan ku noolahay magaalada Hamburg Jarmalka maanta waxaan ka soo qayb galay xalfad aad iyo aad u weyn oo aan ku maamuusnay ama noogu qodbiyay culumadeena Abu Bakar iyo Umar maasha Allah aad iyo aad wallahi maanta muxaadaro waxa ka dhacday inaba aan caadi ahayn waxaan ka faa'iidnay waxyaalo badan oo yacni niyadda ay soo jiitay maasha Allah sidaas oo kale waxaan jecelnahay mar walba inay culumadana dhiirigeliso oo horumarkeena culimo waa joogta carrada laakiin nin walba kinsha soo ordowhaya maasha Allah tacaala waxaan jecelnahay inta in ka badan mar walba waxaan waa in ku wada kulano. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay buugaag ay qoreen Dr. Axmed Al-Qaasimi, Abuukar iyo Sheekh Cumar Maxamed kuwaas oo ka hadlayay mowduucyo kala duwan. Sidoo kale kulanka ayaa diiradda lagu saaray tacdiyada loo geysto haweenka.